waxaan barnaamijka ku eegaynaa xoriyada saxafada mareykanka iyo caqabadihii la soo gudboonaaday 4 sanadood ee uu dalkan xukumayay Donald Trump. wariyaasha mareykanka ayaa ku shaqaynayay xaalad adag iyagoo wajahayay weeraro gacan qaada oo toos ah kuwa afka ah kuwaas oo ay geysanayeen labaduba dadka mudaharaadyada oogayay dalkan mareykanka iyo ciidamada ammaanka. waxa kale oo u dheeraa weeraradii afka ee uu u geysanayay madaxweyne Donald Trump. tusaale ahaan taageerayaashii Trump ee toddobaadyo ka hor weerarka ku qaaday dhismaha Capitol Hill ee aqalka Koongareeska Mareykanka ee magaalada Washington ayaa burburiyay qalabkii wariyaal ka socda wakaaladda wararka ee Associated Press. sidoo kale waxay ku qaylinayeen oo ay u hanjabayeen wariyaashii dhacdadaasi tabinayay waxaana hadaladii ay ku dhawaaqayeen ka mid ahaa dila warbaahinta. 4 sanadood ee la soo dhaafay dhacdooyinkii dhacay waxa ka mid ahaa waxyaabo qarxa oo loo diray xarunta telefishinka CNN, rag hubaysan oo 5 qofood ku dilay xafiiska majalada Capital Gazette ee magaalada Annapolis ee gobolka Maryland, iyo hay'adaha sirdoonka dawladda Mareykanka oo basaasid ku sameynayay wariyaashii soo tabinayay qaxootigii faraha badnaa ee Mareykanka kaga soo qulqulayay xuduudiisa koonfur galbeed ee Mexico. Angela Grilling Kane oo madax ka ah macadka National Press Club Journalism Institute oo VOA-da ugu warramaysay qadka Skype-ka ayaa tiri It wasn't simply a matter of the president and his aides not liking coverage, which is normal, but they attacked true things in ways that were dangerous. And ma ahayn dhibaatadii ay wariyaasha kala kulmeen kaliya in madaxweyne Trump iyo kalkaaliyaashiisa aysan jecleen wararkii laga tabinayay ee laakiinse sidoo kale waxa ay weerarayeen xaqiiqada taasi oo halis ku ahayd badqabka wariyaasha. madaxweyne Trump ayaa intii uu xilka hayay ku eedeynayay warbaahinta. Watan Angela markale. Coverage of any president, really any leader, is by definition not going to most of the time be complimentary. That's not usually what makes news. So the scrutiny that Donald Trump got is tabinta wararka la xiriira madaxweynaha amaba hogaamiye walbaba si qayaxan ayay u yihiin badanaa kuwa lagu amaanayn waayo amaantoodu ma ahan wax warka sameynaya. marka dabcan in saxaafaddu ay daba dhigtaan Trump waa dhab, laakiinse waa un shaqadooda oo ay gudanayaan. dadka wax ka sheega qaabka loola dhaqmo warbaahinta Mareykanka ayaa qaba in taageeridii ilaalinta xorriyadda warbaahinta ee Mareykanka ay nuxuustay marka la eego indhaha caalamka oo markii hore Mareykanka uu hormuud ka ahaa. waxaa tusaale ahaan loo soo qaadan karaa sida Mareykanka uu uga jawaabay dilkii wariyihii u dhashay Sacuudiga ee la shaqaynayay wargeyska The Washington Post, jamal khashoqji ee lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Susan Nozel oo ka tirsan khashoqji way cadeeyeen maamulkii Trump inaysan doonayn in qalashadii la qashtay wariyahaasi ay saameyso xiriirka kala dhaxeeya ayaga Sacuudiga. waxay sheegtay Susan in hay'adaha la midka ah hay'adeeda ay awoodi waayeen inay galaangal u yeeshaan sidii loo sii dayn lahaa wariyaal xirxiran maadaama ay taageero ka waayeen Mareykanka iyo xiriirka labageesoodka ah ee uu dalalka caalamka la leeyahay Betri. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa amaantay geesinimada iyo hal-adayga warbaahinta madaxa bannaan, waxayna qoraallo ay soo saartay ku cambaaraysay marar kala duwan cadaadiska iyo weerarada ka dhanka ah wariyaasha, gaar ahaan wariyaasha dumarka ah. aqalka cad waxa sidoo kale uu xoogaa guula ka gaaray dadaal la doonayay in lagu sii daayo wariye Austin Tice oo ah wariye Mareykanka u dhashay oo madax bannaan oo lagu laayahay dalka Syria tan iyo sanadkii 2012. madaxweynaha hadda talada la wareegaya Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu difaaci doono xuquuqda wariyaasha, dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa iyo howlaha wariyaasha, isla markaana uu maamulkiisa ka shaqaynayo sidii loo soo celin lahaa xiriirka aqalka cad iyo wariyaasha. laakiin dadka arrimahan oo dorso ayaa qaba in xorriyadda saxaafadda ay ka hooseyso heerkii laga rabay dalkan Mareykanka. maamulkii Obama ee uu Biden madaxweyne ku-xigeenka ka ahaa ayaa ku adkeeyay wariyaasha helista xogta ay uga baahan yihiin dawladda, waxaana jiray barar ay hay'adaha sirdoonka iyo kuwa ammaanka u dhaceen xogta taleefanada wariyaasha. Angela Kane ayaa qabta in halista wariyaasha Mareykanka ay wajahayaan ay muddaba soo kordhaysay. Those were very, very dangerous things and things that we weren't used to seeing in the U.S. either. And those happened during the
Obama-Biden administration. So definitely those of us waxay ahaayeen waxyaabaha halis ah oo aanan hore loogu arki jirin Mareykanka. Waana waxyaabahaasi waxa ay dhaceen xilligii xukuumadii Obama iyo Biden. Marka kuweena u doodo xoriyada saxafada iyo in wariyaasha ay heli karaan xogta ay doonayaan, waxaana isha aan ku haynaynaa waxa dhici doona muddo xileedka Biden iyo Harris. dadka u dooda xorriyadda saxaafadda ayaa doonaya in la yareeyo weerarada afka ah ee ka dhanka ah wariyaasha, lana difaaco wariyaasha tabinaya banaanbaxyada iyo rabshadaha, iyo sidii Mareykanka uu ugu istaagi lahaa mar kale difaaca warbaahinta xorta ah. waa tan mar kale Susan, madaxa hay'adda Pan America. The Biden administration needs to start speaking out on behalf of individual journalists around the world. maamulka Biden waxaa laga doonayaa in uu bilaabo in ay cod u noqdaan wariyaasha caalamka oo dhan, gaar ahaanna kuwa la beegsado. Maxamed Muuse Nuur oo loo yaqaano deeq darajo waa wakiil wareedka telefishinka Universal ee dalkan Mareykanka. waxa uu wararka ka soo tabiyaa gobolka Minnesota oo uu ka howlgalo. waxa uu ka mid ahaa wariyaashii sida tooska u soo tabinayay banaanbaxyadii rabshadaha watay ee looga soo horjeeday dilkii George Floyd ee magaalada Minneapolis. waxa kale uu soo tabiyay dhowr mar oo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu gobolka tagay intii uu ku jiray ololihiisii doorashada ee sanadkii 2016. waxaan weydiiyay deeq caqabadihii uu la kulmay. xulaad aad baad maasan tahay. way jirtaa cabsi aad u fara badan oo ay dareemaan qaar ka mid ah wariyaasha. haddii aan tusaale usoo qaato mid ka mid ah dhacdo ka dhacday magaalada Barnesville ee gobolka Minnesota oo anigu aan la kulmay, ayaa waxaa jiray banaanbax iska soo horjeeda, midna lagu taageerayay madaxweyne Donald Trump, midna lagu soo horjeeday. ayaa waxaan damcay in labada dhinacba aan fursad siiyo, laakiin nasiib darro markii aan kasoo dhamaaday dhinacii Donald Trump kasoo horjeeday ayaa waxaan damcay inaan aado dhinaca kale. waxaan kala kulmay cunsuriyad iyo hadallo nacayb ah. dib ayaa iskaga soo noqday. waxaa sidoo kale jirtay dhacdo kale, banaanbixii weynaa ee looga soo horjeeday dilkii loo geystay George Floyd ayaa waxaan ka mid ahaa dadkii tabinayay maalin walba. laakiin maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan la kulmay dad cadaan ah oo iyagu diidanaa in George Floyd oo ahaa nin madow ah loo raadiyo cadaaladda. waxaan kala kulanay dadkaasi iyaguna cunsuriyad iyo waxaan kala kulanay hadallo nacayb ah. haddii aan kugu soo gabagabeeyay dhacdadii ugu dambeysay waa toddobaadkii hore dalkani Mareykanka. waad ogtahay waxa uu galay qalaas aad u xoogan gobolada Mareykanka oo dhan caasimadahooda waxaa ka dhacay banaanbaxyo. marka gobolka Minnesota caasimadiisa magaalada Symbol waxaa ka dhacay banaanbax dad horeysan ay yimaadeen. banaanbaxaasi oo kale marka ma jirin wariye madow ah sida anigoo kale oo in uu tago warbixin kasoo diyaarin kara ma jirto. wariye kastana uu jeclaan lahaa inuu meel walba tago oo warbixin kasoo diyaariya. marka cabsida jirta colaad aad bay u fara badan tahay. dalkani Mareykanka waa wadan dimuqraadiyadda ku weyn tahay, laakiin sidaas oo ay tahay haddana waxaa jira dad cadaan ah oo xag jir ah oo diidan in dadka madow ay dhaqdhaqaaqaan. deeq darajo ayaan weydiiyay waxay ka filan karaan maamulka cusub ee madaxweyne Joe Biden. haddii aan usoo noqdo su'aashada kale, dabcan madaxweynahan cusub ee Joe Biden waxaan ka filan karnaa inuu dib u soo celiyo sumcaddii iyo sharaftii iyo karaamadii dalkan Mareykanka, in uu soo celiyo in xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda hadalka in la dooro oo booliska iyo ciidamada uu howlgeliyo. waxaan ka filanaynaa in sidoo kale dadka maalin kasta sameynaya hadallada cunsuriyadda ku hadlaya in maamulkiisa ay wax ka qabtaan, isla markaana dadkaasi cadaaladda ay waafajiyaan. sidoo kale madaxweynahani waxaan ka filan karnaa in dadka madow sida anigoo kale ay la sinaadaan dadka cadaanka ah ee maalin walba ku faanaya in ay wadankan iyagu leeyihiin, annagoo og in wadankani aysan dad gaar ah aysan lahayn. wariye cilmi waareysna waa wariye madax bannaan oo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Indianapolis gobolka Indiana oo lagu tilmaamo inuu ka mid yahay gobolada Mareykanka ee ay dadka cadaanka ah ku badan yihiin. cilmi waxa uu wararka Mareykanka iyo falanqeyntooda Soomaalida Mareykanka uga sii daaya bar uu ku leeyahay YouTube-ka. barnaamijka Ilayska VOA-da ayaa weydiiyay haddii uu jiro cadaadis ama cabsi uu dareemay intii uu hawshan ku jiray. colaad way jirtaa. haddii aan mid ka mid ah kuu soo qaado, waxaa ka mid ah xilligii dilkii George Floyd uu ka dhacay Minneapolis bishii May sanadkii lasoo dhaafay. waxaad ogtahay in wadanka oo idil iyo caalamkaba rabshado xoogan ay ka bilowdeen. gobol kasta oo ka mid ah gobolada Mareykankana rabshadahaasi waa ay saameeyeen. marka mar waxaa jirtay in
bartamaha magaaladan aan ku noolahay burbur weyn intay u geysteen kooxahan nolosha dadka madowga macna ay leedahay ama Black Lives Matter mudaharaadka sameynayay ay burburiyeen bartamaha magaalada marka subaxdii ayaan halkaasi tagay waxaanan bilaabay in aan duubo oo aan warbixin ka sameeyo goobihii ay burburiyeen dadkaasi mudaharaadka sameynayay oo goobo ganacsiga u badnaa bangiyo ay ku jireen hoteelo ay ku jireen marka xilli aan marka duubitaankii waday ayaa waxa aan la kulmay in kooxa ka mid ah ayaga nafsad ahaantooda dadkii mudaharaadka sameynayay in ay dhibaato ama weerar ii geystaan oo yiraahdaan maxaad u duubaysaa waxyaabahan annagu aan burburinay marka waxa ay ka mid tahay waxyaabaha marka qofka aan la kulmay muddadii aan ku jiray hadda aan duubitaanka ku jiray YouTube-ka waxaan inta badan dadka Mareykanka la wadaagaa waxyaabaha ka dhaca dalkan Mareykanka marka madaxweynihii horena sida aad la socoto warbaahinta oo idil magac waxa uu bixiyay in ay wax been ah sameeyaan oo fake news ayuu ugu magac daray isaga nafsad ahaantiisa ayaana sababayba in warbaahinta fiiro gaar ah loo yeesho maadaama barihii bulshada uu warar badan oo been abuur ah uu ku soo qori jiray taas oo ugu dambeyntii sababtay in barihiisii bulshada sida Twitterka iyo Facebooka laga mamnuuco marka qatartu ma ahan in ay saameynayso wariyaasha kale ee wadankan u dhashay laakiin inaga oo wadankan nimid qaab qaxooti ahaan ku nimid wali deganna sidoo kale dhinaceena ay naga saameynaysaa dhibaatada uu madaxweynihii hore uu wadankan uga tagay idaacaddan VOA-da ayaa afartii sannadood ee Trump la kulantay culays kaga imanayay madaxii uu Trump u soo magacaabay hay'adda USAGM ee maamusha dhowr hay'adood oo ay VOA-du ku jirto Michael Pack waxaa madax hore oo uu Michael Pack ka eriyay hay'adaha hoos yimaada USAGM oo ay VOA-du ka mid tahay kuwo iscasilay iyo shaqaale 20 ka badan oo dacwad ka gudbiyay Pack ay ku eedeeyeen inuu doonayo in VOA-da oo lagu maalgeliyo lacagta cashuurta ee dadweynaha Mareykanka uu ka dhigo mid ku hadasha afka maamulkii Trump dacwadaha ayaa loo gudbiyay xafiiska golaha qaaska ah ee baarista ee dowladda federaalka Mareykanka kaasoo markii dambe amray eedaha loo soo jeediyay Pack in baaris gaar ah lagu sameeyo maxkamad ku taala magaalada Washington DC-na waxay ku amartay Pack inuusan faragelin karin arrimaha la xiriira go'aanka gaarista wararka ee VOA-da madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da Cabdiraxmaan Yabarow ayaa barnaamijka Ilayska VOA-da uga warramay VOA-da iyo waxay u taagan tahay ee keenay inay ka hortimaado in siyaasadeeda madax banaanida iyo dhexdhexaadnimo ee warbaahineed la wiiqo mahadsanid colaad inta aanan u guda galin su'aashaada jawaabteeda oo ah waxa ay VOA u taagan tahay iyo madax banaanideeda marka hore dadweynaha aan xasuusiyo ama sharaxaad gaar ah ka siiyo intaanan aqoon Voice of America markeedii koobaad waxa la abuuray tan guud weeyaane bisha February 1942 muddaha tan laga joogo 79 sano waxa VOA ka howlgala luqado gaaraya 47 luqadood af Soomaaligu imika waxa uu socdaa 14 sano oo xiriir ah ayuu ka furan yahay VOA laakiin marka horeysay baa jirtay oo markii ugu horeysay ee VOA la furay waxay ahayd bishii December 1992 waxaana la xiray bishii May 1994 muddo sanad iyo bar ayay waagaasi hawada ku jirtay oo dadka xasuusta ay maqli jireen idaacadda aroornimo oo kaliya ay ahaan jirtay haddaan se u soo noqdo su'aashaada jawaabteeda waxa ay u taagan tahay VOA ama ma leedahay madax banaani waa run oo madax banaani aan caadi ahayn bay leedahay inkastoo ay Voice of America dowladda Mareykanka iyo Congressku ay soo go'aamiyaan oo hantida ay ku shaqeyso shaqaalaheeda iyo wixii la halmaala ay lacagteeda dowladdu bixiso oo ay tahay cashuur dadweynaha laga qaado haddana sida meelaha qaarkood ama wadamada qaarkood uma shaqeyso oo madaxweynaha iyo dowladda markaas jooga amarkooda kuma shaqeyso waxa ay ku shaqeysaa inay sii deyso cod la rumayn karo oo sax ah oo dhaxdhaxaad ah oo dheelitiran waxaan ka wadaa oo dheelitiran haddii matalan qof aad wareysato oo qofkaasi ka soo qaad in dowladda qof ka soo horjeeda aad wareysato qofkaasi waxa uu doono dowladda uu ka sheego isaga mas'uul ka ah laakiin waxa VOA ay mas'uul ka saaran tahay oo ay ka shaqeysaa oo mar walba ay hubisaa in dowladda lafteeda fursad la siiyo oo shacabka ay u sheegto waxa mucaaradku ay ka sheegayaan ama dadka kale ay ka sheegayaan ama shacabku ka sheegayaan inay jiraan iyo in kale marka dheelitirka laga hadlayo waa kaas waxaan la yiraahdaa balansiga sida daraadeed
waxa ay u taagan tahay madax banaanidaasi inay wixii alla wixii jira qofku meesha doona adduunka ha ka joogo hadduu Mareykan yahay iyo hadduuna Mareykan ahaynba in qofka wixii laga sheegayo ama dawladda laga sheegayo oo sida dawladda Mareykanka lafteeda oo amika maalgelisa haddii ay wax khalad ka dhacaan 24 saac waxaad ka maqashaan idaacadaha yaga in aanu sii deyno wixii khalad ah uu galo madaxweynaha ama wasiiradiisa qaarkood haddii wax sax ah sameeyaan wixii sax ah ay sameeyaan la sheego cabdiraxmaan yabrow ayaan weydiiyey mar haddii VOA-du ay ku doodayso inay ka madax bannaan tahay faragelinta dawladda dhexe ee Mareykanka cidda la xisaabtamaysa haddii ay qaladaad ka dhacaan wararkeeda laamaha kala duwan ee VOA iskama sheegaan waxay doonaan waxaa jira isxisaabin waxaa jira hay'ado aan hawl kala qaban oo ka shaqeeya wixii la sii daayay inay dib u eegaan marka hay'adahaasi waxay eegaan wixii barnaamijyo ah ee laanta af Soomaaliga ama laanta af Sawaaxiliga ama laanta Russianka ama luqad kasta oo ka baxda VOA wixii ay sii daysay sanadkaas baaritaan baa lagu sameeyaa haddii ay jiraan meelo aan fursad loo siinin qof la soo eedeeyay tiiba ya la soo bandhiga waa wax yaani kala cad oo aan qofna la gaban karin marka dhibaatooyinka ugu badan ee inta badan laamaha haysta waxay tahay in markii gaar ahaan dawladaha qaarkood iyo maamulada qaarkood ay wax ka dhacaan in dawladihii aanay ka jawaabin oo ay ama si ula kaca ay uga aamusaan wasiiradooda iyo dadka qaabilsan amaba ayna ogeynba wixii ama damba kala hayn taa marka waxay keenaysaa in ay ku qasbanaadaan idaacaduhu inay tan VOA-du ay sheegto qofkii in la raadshay uuna ka jawaabi waayo laakiin marka ugu horeysa uu ka soo jawaabana fursad la siinayo marka way u madax bannaan yihiin waxa ay sheegayaan dawladana lacag gelisa darteedna looguma yeedhiyo VOA waxa ay sheegayso ama waxa ka baxaya waxyaabaha madaxii hore ee USAGA Michael Pag lagu eedeeyay waxa kamid ahaa inuu ku guuldareystay inuu wariyaal ka howlgeliyay VOA-da oo uu cusboonaysiiyo fiisooyinkii shaqo ee J1ka loo yaqaanay ee u ogolaanayay inay Mareykanka sii joogaan oo ay shaqadooda sii wataan war qoraala oo ka soo baxay xafiyaan u hadlay hay'adda USAGM bishii July ee sanadkii tagay ayaa lagu sheegay in fiisooyinkii wariyaashaasi dib u eegis lagu sameeyay go'aana laga gaaray iyadoo la ilaalinayo ammaanka qaranka ee Mareykanka lana xaqiijinayo in awoodda shaqaalaysiinta aan lagu tagrifalin waa kan cabdiraxmaan yabrow madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da oo mar kale arintaasi barnaamijka ilayska uga waramaya hay'adda USAGM waxyaabo badan baa soo maray intii maamulkii imika dhamaaday uu jiray meelaha maamulkii ama madaxdii dawladii Trump ay lugta la gashay bay kamid ahayd nin ayaa loo soo magacaabay muddo hadda dhowr bilood laga joogo isbedelo badan baa ka dhacay laakiin ninkii ay dawladii hore keentay oo ay CEO uga soo dhigtay maamulaha guud Michael Pack laba maalmood markii uu joogay madaxweyne Biden digniin baa loo soo diray uu ka baxay in waxa laga codsaday uu iscasilo sidii isku casilay uu tagay qof kale lagu bedelay mana aha wax maarkino gorgortan gala hawsha VOA-da leedahay ahdiga u dhigan VOA-da waxa uu qorayo waa wax sugan oo ah inaan dawladdu soo faragelinin wixii ay sameeynaysan ay u madax bannaan tahay dhinaca shaqaalihii ku jooga J1ka ee aad weydiisay shaqaalaha J1ka ku jooga waa kuwa laga keeno wadanka Mareykanka meel ka baxsan oo dawladda Mareykanku ay qorto markii shaqaale hawshaas qaban kara laga waayo dalka gudihiisa waa run qaar badan baa intii maamulkii hore uu jiray shaqadii laga joojiyay laguna qasbay meelihii markii hore ka yimaadeen ay dib ugu noqdeen laakiin imika kuwii iyaga la midka ahaa ee aanu sharcigaasi ka dhicin waxaa durba la bilaabay in la yiraahdo waa loo cusboonaysiinayaa kuwa hore tagay laftoodana haddii aan fursadihii iyo meelihii ay ka baxeen aanan la buuxinin iyagana laga yaabaa in fursado kale loo siiyo inay ku soo noqdaan marka J1 visa-na intaasaan kala ah dhawaan markii uu xafiiska la wareegay Joe Biden ayaa Michael Pack oo muddo 7 bilood ah oo kaliya madax ka ahaa USAGM lagu wargeliyay inuu iscasilo waxa booskiisii si ku meel gaar ah loogu magacaabay Kelo Chao oo muddo 40 sanadood ah VOA-da la soo shaqeynaysay ahaydna madaxii barnaamijyada Kelo waxay kamid ahayd sida lagu sheegay warbixin ay qortay VOA-da dadkii ku marqaati furayay Michael Pack
gaar ahaan mid ka mid ah dacwado lagu soo oogay oo la xiriirtay sida uu hay'adda u maamulayay iyo faragelin uu ku hayay madax bannaanida wararka ee VOA-da. waxaa isna meesha laga eriyey Robert Riley oo bishii December ee sanadkii hore uu Michael Bagg soo magacaabay iyo ku-xigeenkiisii haweeneyda la yiraahdo Elizabeth Robbins. Yolanda Lopez oo hore u soo noqotay agaasimihii xafiiska wararka ee VOA-da ayaa loo magacaabay ku-timaha madaxa VOA-da. muddo 4 sannadood oo ay cadaawad ka dhaxaysay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump iyo inta badan hay'adaha warbaahinta iyo wariyaasha u shaqeeya ee Mareykanka ayaa hadda waxaa dadka u ololeeya xorriyadda saxaafadda ay rajo ka qabaan in maamulka cusub ee madaxweyne Biden uu caadi ku soo celiyo xiriirka saxaafadda iyo aqalka cad. intaasina waxaa dhagaystayaal nooga dhan barnaamijkii Ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay caqabadaha xorriyadda saxaafadda Mareykanka ee xilligii maamulkii Trump iyo waxay ka filayaan maamulka cusub ee Biden. inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe u kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.